الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسينا وحو كبلاب مياه آية كوباد سورة الفاتحة. سورة الفاتحة مكية وآياتها 7. سورة مقعدة وحالي لها سورة الفاتحة مقعية فربضا بيلاذا هاي مقعية ذا بدندو حيث سنيان شرفت أي سورة دلاذا هاي مقعية ذا وحاكمذا سورة الفاتحة القرآن باكمذا الكتاب باكمذا السبع المثاني باكمذا الشافية يا كمذا يا الكافية يا الواقية يا أسماء ذو ويبضنتها إلى دوري اللباتن مقع أي علماء جارسيين. سورة وحاوية سورة مكة كسود دكتي علماء قيب كمذه وحيليه المدينة أي كسود دكتي سورة قيب كمذه وحيليه لبا مربي سود دكتي ومرنا مكة أي كسود دكتي مرنا مدينة أي كسود دكتي قيب كلا وحيليه نسكدنا مكة أي كسود دكتي نسكدنا مدينة أي كسود دكتي، لكن قولك أقول معتمد سني وحاوية إلى سورة مكية هاي سورة وحاوية تضباء آيادود أي ككوبانتا تضباء آيادودين أي ككوبانتا والليسكو وافقسين هاي، لكن وحا هذا الكتاغين هاي تضباء آيادود هالكيبay ku kala joogan culimada qayb kamidii waxay leeyihiin bismaladu aayad weeye. marka aayada toddobaadna siraatal ladiina bay ka bilaabmaysaa, qaybta kale waxay leeyihiin aayadu basmaladu aayad suurada kamid ama aha. marka aayada toddobaad waxay noqonaysaa غير المغضوب عليهم bay ka bilaabmaysaa, sidaasay aayadaheeduna yihiin. suuradu fadligeedu waa ballaaran yahay. waxaa kamid ah nabigu sallallahu alayhi wa sallam abi saciid ibn al-mu'alla radiyallahu anhu ayuu wuxuu ku yiri waxaan ku barayaa law callimanaka suuratan hiya a'zamu suwari fil qur'aan, waxaan ku barayaa suurada ugu weyn qur'aanka. deedna wuxuu yiri alxamdulillaahi rabbil aalamiin hiya sab'u al-mathani wal qur'aanu al-'aziim alladhi utiitu. suuradaasi waxa weeye sab'u al-mathani wa qur'aankii weynaa ee la siiyay oo rabbi subhanahu wa ta'ala walaqad aataynaaka sab'an min al-mathani wal qur'aan al-'aziim. kolka uu leeyahay suuradan ayuu ishaarayaa sidoo xadiisku cadaynayo. suurada fadligeeda waa badan yahay, xadiiskaasan kaga kaaftoomaynaa. suuradu waxay u hadlaysaa sida suuradaha makigiihiba ay u hadlaan, hase yeeshee waa qur'aan oo iyadu waxay dhammaystiraysaa culumtii qur'aanka ku kulansanayd oo dhan. waxay ka hadlaysaa jaanib al-caqiida, caqiidada islaamka haddii ay ku saabsan tahay uluuhiya iyo haddii ay ku saabsan tahay alwaxyi waalrisaala
iyo hadday albacthu wannushuur iyo wixii ka dambeeya ku saabsan tahay saddexda jaanibba way taabanaysaa. caqiidada waxdaaniyada ku saabsan iyo sifaadda ilaah subxaanahu wa tacaalaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim ayay kaga hadlaysaa. caqiidada ku saabsan nabiga iyo risaaladiisa iyo waxyigana siraata aladiina ancamta calayhim halkaasay ku taabanaysaa. caqiidada ku saabsan bacsiga iyo qiyaamaha iyo nashriga iyo wixii ka dambeeyana maaliki yowmiddiin ayay ku taabanaysaa. waxaa kaloo ka hadlaysaa suuraddu jaanibulcibaada. cibaadaadku ama maali ha ahaadaan ama badani ha ahaadaan, mucaamalaadkiina way soo dabagelayaan cibaadaadka oo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ayay kaga hadlaysaa. waxay ka hadlaysaa suuraddu jaanib alakhlaaq, akhlaaqda wanaagsan iyo akhlaaqda xunxun dadkoodiibay kala caddaysay oo siraata aladiina ancamta calayhim ayay ku caddaysay dadkii wanaagsanaa, hayri almaqduubi calayhim waladdaaliinna dadkii xumxumaabay ku caddaysay. markaa waa akhlaaqdii iyo ayay dhinacaana ka taabanaysaa. dhinaca kale waxay taabanaysaa akhbaaru lumami almaadiya iyo qisaskoodii intii wanaagsanayd siraata aladiina ancamta calayhim weeye, intii xumxumaydna hayri almaqduubi calayhim waladdaaliin. afartaa nooc oo qur'aanka culumtiisu ay shamlinaysaa iyo afartaba suuraddu shamlinaysaa. midda kale siduu nabigu inoo caddeeyey sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa ahaa ee imaamu muslim uu warinaya abaa hurayra radiallaahu canhu, rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ilaah baa yidhi salaadda waan qaybiye aniga iyo addoonkayga dhexdannada ayaanu qaybiyoo laba isla eg baan ka dhigay. deedna addoonku markuu yidhaahdaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayuu rabbi subxaanahu wa tacaalaa wuxuu odhanayaa xamadanii cabdii. haddana markuu yidhaahdaa alraxmaani alraxiim ayuu odhanayaa ahnaa calaya cabdii. haddana markii uu yidhaahdaa maaliki yowmiddiin ayuu rabbi subxaanahu wa tacaalaa odhanayaa majadanii cabdii. markii uu yidhaahda iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ayuu rabbi odhanayaa haadaa baynii wa bayna cabdii. arrintaasi anigii addoonka ayay noo dhaxaysaa. cibaadadu waa siladii addoonka iyo rabbigiisa u dhaxeeyey iyo xidhiidhkii ka dhaxeeyey. ihdina asiraata almustaqiima siraata aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim waladdaaliin markuu yidhaahdana haadaa licabdii walicabdii maa sa'al ayuu rabbi subxaanahu wa tacaalaa odhanayaa. marka suuraddu waxaa weeye tacliim rabbi subxaanahu wa tacaalaa uu ina tacliiminayo oo qaabka markii aynu rabbi wax ka doonayna aynu u qaabilayna ayuu inagu tacliiminayaa. marka hore waa inaan xamdiga horraysiinno iyo ammaanta rabbi subxaanahu wa tacaalaa. marka labaad waa inaan caddayno caqiidadeenna oo cidda aan ku kalsoonnahay ee aan caabudayno een u tala dhiibanaynana waa inaan caddayno go'aankaana aan sheegno. mar saddexaad waa inaad su'aasheen la dhiibanno oo rabbi subxaanahu wa tacaalaa waxa aan uga baahannahay een ka doonayna aanu caddayno. wax rabbi la weydiisto waxa u sarreeyana waa hidaayada. sidaasuu rabbi subxaanahu wa tacaalaa inoogu tacliimiyo marka waxay ka dhigan tahay isagoo inale rabbi subxaanahu wa tacaalaa quuluu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim ilaa aakhiri suura isagoo sidaa inoogu tacliiminaya ayay ka dhigan tahay. marka waxaa weeye waa sidaas tacliimtaas ayay suuraddu inoo noqonaysaa. allahayna waafajiyo. wuxuu haddaba yidhi rabbi subxaanahu wa tacaalaa bismi illaahi alraxmaani alraxiim. bismi illaahi ilaahay magiciisa allihii arraxmaan naxariista guud ahaaneed bixinaya addoommada dhammaantood muslim iyo gaalba siinaya adduunka dhexdiisa. alraxiimi ee naxariista gaarnimo bixinayay aakhire markii la gaadha mu'miniinta keliya tan ku gaarkaa wa kaana bilmu'miniina raxiimaa. amase arraxmaani naxariista waaweyn bixinaya ee muuqmuuqata alraxiim naxariista qarqarsoon ee cid waliba ayna dareemaynin bixinayey. marka arraxmaan baa macnihiisuu ka ballaadhan yahay raxiim.
الله ومجع إلهي الرحمن يا الرحيم نوالب مجع إلهي الله إله عدانا هين لو مبحن الرحمن نصيد وكلا لو مبحن الرحيم لكن والله بحن كرائسه الله تيرين أيوه والرحيم القلب بالأران أياه نبي صلى الله عليه وسلم أيوه رب كشيء الرؤوف الرحيم قولك الرحيم لماذا والله شيء كراعد عن رب سبحانه وتعالى أهين الله مجعيس أيان أبتدئ كب اللعبنا يا قراءة إذا يا أقرنت إذا يا وحكستو الله قبنا يا بإنسيد الله قب اللوضاء اللي نوجده الحمد لله مهد إله بالا أمان إله با إسكال الله رب العالمين عالمين تأردن بإساق بقر كوضا هاي لها إساق أبو ريء إساق معمولي إساق نقالين كورين isagu ku tasarrufay ka shaqeynaya hawlahooda allahaasa mahadle caalamiintuna wax alla wixii ilaahay ka soo haray oo dhan bay noqonayaan jinni iyo insi iyo malaa'ig iyo makhluuqaadka dhammaantood maxaa yeelay wama rabbul caalamiin qaala rabbus samaawaati wal ardi wama baynahumaa in kuntum muuqiniin caalamiinta waxaa loogu bixiyey waa tusaalayaal dhammaan ilaah bay tusayaan oo ومخلوقات كدمانتي وعلامة رب سبحانه وتعالى لغو قرانيا أستامي سمد رب لغو قرانيا ويه وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد الرحمن الرحيم بهدنا كسو عليا معنه واللبذي اسمه هراؤون حسيا شمركي رب العالمين ليلو مالك ومتصرف كيساقا أي كاليجي تلدا هايستا أيام مسألة سوحي موجستي ترهيب الضوامد اللي عبسي قلين أيو كليجي تلسوي رب سبحانه وتعالى كل كي اللي يلوى عبسي قلين دينا تيبا اللي يسكاقا فضودين أيو الرحمن الرحيم وإيه نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم لبضى الصفة بوليه هي وترهيبي يترغيب بين قنيسة مالك يوم الدين maalinta abaalmarinta kii hananaye allaha waxa weeye maalinta abaalmarinta isagu hanta kolkii maalig qiraa'ada la mara sidaasoo noqonayaa haddii maliki yawmiddiini la yidhaahda iyadaaba ka sii macno dheer ah maalinta qiyaamada isagaa boqor ka ah weeyaan almelig alquduus waa magacyada ilaahay ee rabbi subxaanahu wa tacaala uu isku caddeeyey lahulmulku kolkaa maalig markii la yidhaahdana milki bay ka imanaysaa ملك مركي اللي يدهدنا ملكي باي كايمانيسا ملكي غانا كمعلا بلادان او ملك وحير بالله تيرين مالك ملكي وحير بالله تيرين كرايو مالك الصوبي يا مالك العبد يا مالك الدرهم يا مالك الدار يا لا اوران كرا لكن ملك وحيالها ير لو ما تيريه وبقركا ودن إذل هايستا يا ملك ليدا هذا ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ملكي والسداس ونقنيا marka maaliki yawmiddiin iyo maliki yawmiddiin labadaba sidaas ay sax ku yihiin malik hadii la yiraahdana waa boqorka malik hadii la yiraahdana waa hantiyaha yawmiddiin kuna waa yawmka abaalinta weeyaan qof waliba wixii uu soo shaqaystay lagu abaalinayo maxaa maalinta inuu boqor ka yahay gaar loogu soo qabanaya waxa weeye adduunka markii la joogo boqorro sheegasho aba jirto ودن هبل بقر كاسا كتليا ودن هبل بقر كاسا كتليا ودن هبل بقر كاسا كتليا اللي هذا وحي أردنا مالين تاو وذا بابا أي ملك لما تروا لمن الملك اليوم كلك رب سبحانه وتعالى إلى هذا لله الواحد القهار ساسا قار لوغو سوقمانيا مركي رب سبحانه وتعالى صفات وناكسن لوغو سو أماني ayaa sifaadiisi kolkii la badiyay waxay noqotay sidii wax la hor taagan yahay oo kale kolkaas hadalkii sidii uu u soo socday laga leexiyay oo khitaab loo leexiyay rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri iyaaka na'bud adiga ayaanu ku caabudeynaa kaliya rabbi oo sidaas oo adoonkii oranaya wa iyaaka adiga oo kaliya baanu nastaciinu gargaarku weydiisanaynaa رب سبحانه وتعالى وحير أضونك يسوى الله خطاب تم يسيدي وحر تاغن وكال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويه أذيك أيان ربي وكعابدينا وعبادة النظى أنكو قاريالينا عدكالو أنكو قرب قلينينا يمترتوه
isticaanada umuuraha nagana adiga ayaanu kugu gaaryeelaynaayo cid kale oon gargaar weydiisanaynay ma jirto marka waxa weeye cubuudiyadii iyo tawakkulkiiba adiga ay kugu gaartahay facbuduhu wa tawakkal calayhi sideedii oo kale weeyaan kolkuu addoonku soo ammaanay rabbi subxaanahu wa tacaala iscaddeeyeyna inuu cibaadada iyo isticaanadaba isaga ku gaaryeelayo ayaa deedna su-aashii loo soo dhaadhacay cibaadada iyo isticaanada cibaadadu waa maqsuudka isticaanaduna waa wasiila sidaas darteed baa cibaadada loo soo horraysiiyey iyadaa aham ahe wasiiladiina waa la dambaysiiyey deedna wuxuu yidhi addoonku rabbi subxaanahu wa tacaala wuu ina tacliiminayaaye ihdinaa allowna hanuuni sidaa dhaha asiraada dariiqa nagu hanuuni almustaqiima oo toosan ilaahayow nagu hanuuni jidka toosaneen qalqallooc lahayn jidka toosaneen qalqallooca lahayn waa jidka islaamnimada siraadka mustaqiimka ah waana haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicu subal jidkaygii waa kaa toosanay isaga ha la raaco jidadka qalqalloocanee leexleexanaya xagga ayaan la raacin hidaayadu marka laba qaybood bay noqonaysaayo hidaayatu dalaalati wal-iidaax iyo hidaayatul iisaal labadaasay noqonaysaa hidaayatu dalaala ilaahay iyo addoommadaba waa loo tiirin karaa wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim addoommada ducaadii iyo waa hudaad baa la odhanayaa laakiin hidaayada iisaalka la yidhaahda rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa la gaar ah oo waxa weeye nabiga sala allahu calayhi wasallam tuu ka anfiyey innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa taasi marka hidaayatul iisaal weeyaan haddaba su-aashu hadda waxay u dhacaysaa labadiiba oo rabbi waxaan weydiisanaynaa inuu jidka inoona caddeeyo inana qaadsiiyo oo ina mariyo ayaan weydiisanaynaa innaga oo hanuunsanba haddana waxaynu u weydiisanaynaaye waxa weeye inay inoo sii daa'imta hidaayadu yaa ayuha aladiina aaminuu buu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala oo bimacnaa iimaanka daa'ima iyo inay inoo ziyaado oo waladiina htadow zaadahum hudaa ay hanuunkana inoo ziyaadisa sidaasaan u weydiisanaynaayoo su-aashu u dhacaysaa jidka toosan baa la doonayaa in lasii caddeeyee waa kee siraata aladiina ancamta calayhim waa kuwii aad rabbiyow adigu u nicmaysay jidkoodii kuwa uu rabbi u nicmeeyey waxaa weeye waman yutic illaaha waalrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allaahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqaa aayaddaata uu rabbi inoogu caddeeye weeye dadka loo nicmeeyey waxaa weeye nebiyadii iyo sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo saalixiintii afartaa qolo ayay noqonayaan kuwaasaan haddaba ilaah jidkooda weydiisanaynaa غير المغضوب عليهم صراط غير المغضوب عليهم kuwii loo cadhooday iyaga dushooda loo cadhooday kuwa jidkoodii kayrkii baanu ku weydiisanaynaa oo jidkoodii jid aan ahayn baan kaa rabnaa waladaaliina kuwii hallaabay iyagana jidkoodii jid aan ahayn wasiraada hayri daaliina bay ka dhigan tahay kuwii hallaabay jidkoodii kayrkii baan ku weydiisanaynaa marka maqduubu calayhim kuwa aya waa alyahuud daaliintuna waa ayaa nasaara weeye yahuud qadabka ilaah baa ku sheegay oo man lacanahu allaahu waqadiba calayh wajacala minhum alqiradata waalkhanaaziir waxaa kaluu ku sheegay fabaa'uu biqadabin calaa qadab weeye oo iyaga sidaasaa maqduubu calayhim loogu bixiyey daaliintuna nasaaro weeye oo qad dalluu min qablu wa adalluu kahiiran wa dalluu can sawaa'i sabiil kuwaasina nasaaro weeyaan labada qolo midna maqduubu calayhim baa la yidhaahdaa midna daaliin baa la yidhaahdaa qadabka iyo dalaalka qadabka ayaa daranay yahuudda waxaa loo dul saaray iyagu macal cilmi bay hallaabeenoo iyagoo aqoon u leh bay cilmigii camalkiisii ka leexdeen nasaarana bilaa cilmi bay camal faleen marka shakhsiga waxaa looga baahan yahay muuminkaa inuu shayga uu qabanayo horta aqoon u yeesho haddana markii uu aqoon u yeesho dabadeed inuu wixii sameeyo oo dabaqo oo cilmigii ku camal falo haddii uu isagoo cilmila camal fali waaye yahuudda jidkoodii buu marayaa haddii uu cilmi la'aan baan camal fali yidhaahdana nasaarada jidkoodii buu marayaa labada jidba inay mu'miniintu garab maraan baa la doonayaayoo dariiqa toosani waxa weeye dariiqa cilmiga iyo camalka ku binaysan
sidaasuu noqonaya laakiin haddii cilmi la'aan camal la qabti iyo haddii cilmigii lagu camal fali waayo labaduba hallo weeyaan waa ka sheekheennii raximahullah uu yidhi facaalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun min qabli caabidi lwasan wa kullu man bigayri cilmin yacmalu acmaaluhu marduudatun laa tuqbal shaacirkii kale fasaadun kabiirun caalimun mutahatik wa akbaru minhu jaahilun mutanasik هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك marka haddii cilmi la'aan qofku waan camal fali uu yiraahdo iyo haddii uu cilmigiisii ku camal fali waayo labaduba dhibaato weeyaan labadaaba in la garab maro ayaa la doonayaa siraata ghayri almaghdubi calayhim wa siraata ghayri daaliin saasay noqonaysaa marka ancamtada rabbi subxaanahu wa tacaala waa lagula khidaabtamay tacliim weeye oo wixiisan inaa rabbi loo aaneeyo ayaa layna barayaa wixii xunna inaan rabbi la garab mariyo ghayri almaghduubi calayhim ka u cadhoonaya iyo daaliinta ka hadlaynayaa waa isla isaga uun laakiin haddana adigaa halleeye iyo adaa u cadhooday laguma caddaynin aadaabta loola hadlo rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa layna barayaayo sida hadalkiisii kale وإذا مرضت فهو يشفين كل كان حنون صد حنونك الله مونا أتيرين عافمات كينا الله أتيريو أمرضني مونا أرانين مرضت بويري فهو يشفين وحكى لو أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا مدك له كل كي أخلر قصديسي فأردت أن أعيدها بويري عيبتي إسجا إسوتيريه kolkay hagaajintii noqotayna fa araada rabbuka an yablugaa ashuddahumaa buu yidhi marka wixii san baa ilaahay loo tiiriyaa wixii xunna rabbi subxaanahu wa tacaala looma tiiriya taasna waa laynagu tababarayaa waladaaliin aamiin inaa suuradda laga dambaysiiyo salaad iyo kayrkeedba ayaa wanaagsan oo aamiintaasi bimacnaa istajib bay ka dhigan tahay ducada aan ducaynay rabbiyow yeel sidaasay noqonaysaa haddaba rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu inagu tacliimiyey qaabkii aynu u baryi lahayn inaan kolka hore ammaanta horraysiinno inaan cibaadadeenna khallisno oon caddayno inaan markaas su'aasheenna dhiibanno addoonku kolkuu weliba cibaadada ka hadlaya iyaaka nacbudu buu yidhi oo acbudu muuna odhane waxay ka dhigan tahay anigu addoon xaqiira baan ahayoo keligay rabbiyow isma kaa hortaagi karo oo kuma caabudi kare waxaan isku darayaa addoommada mu'miniinta deedna sidaasaan kugu caabudayaa darsigeennii maanta intaasuu ku kooban yahay wabillaahi tawfiiq وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.